dad u taraacinaysay hadda kor ugu tuurisay si hogga u tuuray dadka dheeriin hadii ku dheeyo tural oo kale oo soo taraacin kartaa laakiin mar walba inaad isku soo dhaweynaa isku day ana soo dhaweynin madaxa waxaan u soo dhaweynin إسحاق كيرو وآدن علي ومقاعديسا بقرشادو يهين عبد اللطيف عمر فاروق iyo Cabdiraxmaan 2014 ayuu isaga tagay tuulada Dudumaale oo u dhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu ugu biiro Al-Shabaab safar dheer oo dhulka kadib waxa uu tababar kula qaatay Boosh Madiino 145 dhalinyaro ah oo laga soo aruurshay gobolada dalka Dugle Owdigle Shaam Bariire Baraawe Qoryooley Sabiid iyo Caanoole iyo Aqbari Weyn Golweyn iyo Afgooyo oo dhammaan ka tirsan shabeellada hoose ayuu waqtigiisa ugu badan ee dhuumaaleysiga ku qaatay marka laga reebay inuu hiiraan qayb ka ahaa argagixisada weerar gubid ah oo ay ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ganacsato raashin ugu rarneed Bakool kadib markii ay iska diideen baad lagu daharay sunnada diinta Islaamka anka alwashi baa ka baad abadisi loo shibay marka hortii markii laga qabsaday ay buuray fuulay marka buurta looma kori karo هذا كرتون كسر دقيقتين كده أنت كساعكو قاده بدينه واتنا يبهرت أساسا ولكن حليري هذا صلابته بهرت هل جوالي أيضا بهرت ولكن أنت اللي جارته وحين هو تأفر توي جارين هذا أنت اللي جاري من دواب جم بواي أنا درا بوشة وجم بواي ولكن نوع جنت مركا شدة وبودره ولكن نوع شدة لوش بي شدة كليه با رجل صلابته جنتين وحلا كون ما بالجاري ولا صار لكن اللي جوا الشغال كل شوية شركة ما تعرف فرطة شغال كل شوية كناس لو فيديو جانتي كتعاون مرك كناس مطورة مرك أزل جبنان والراشين أزل جارين intii uu ku jiray jabhadnimada iyo weerarada jidgalka waxa uu soo ragashay inuu noqdo horjoogo kumeel gaar ah waxa uu u joogay jabhad marka katiibada saddex jabhad way marka rigi meelahan joogan fasafasahay riga hadii magan yihiin kuwa loo dhiibtaa yani marka jabhad mid kama liiday madeed waxa raysanayd katiiba ku raysanayd mid liidibay laakiin dhagartiisa oo daran darteed iyo sida uu la dhaqmo reer guuraaga iyo safarleyda jidkan dheer mara waxa ay u suura gelisay in loo tababaro dilalka gaadmada ah ikhtiyaalaad iyo tuurida bambo infanta meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee loogu talagalay adeegidooda taas waa ka faa'iiday marka dadka si loo dilaa kaga sheekeeyo qofan waba socdaaba ma ku jiido kaasoo kale waa fursad laakiin qofka ku soo fiirinayo kale إنها كلهنا وأنا أكتسب مرة هذه كلاش سوبها وفيرنا يكون مشغول أكيد بس كم دقيقة يصير ما كان دافتي وكسر لعنا هذا كل شيء جالس كل جراه قف كسرنا مرور بنا قدر كمرتنا هنا قف هرتس كنوس وبعيس سواء كان وران وكفيرنا إن بحاش الله صباح وكاسو كوجيدين بقول كريه وبعدي بهاش قريس وتو قري وتو ما سو غريغنا هنا ما بيقولوا هذا كاسو كله markii taas way soo baray Axmed Umar Calasow oo la dilay 22 January sanadkan ayuu ka qayb noqday Kero waana dilkii ugu horeeyay ee weedu ka fuliyaan isaga iyo laba kale oo si wada jira u howlgalayeen Kero waxa uu ii sheegay sababta ay uga tanaasuleen isticmaalka bastoolada inay tahay tubta amni oo uu sameystay taliska booliiska gobolka Banaadir taasi oo sababtay in koob badan oo saaxiibadiisa loo diro hoyga dambe aakhiro bastoolad macnaha shaqada ma yaalina in la soo diyaaray rabtaa dad lagu qabtay rabtaa marka qabashada noo badnayd marka qofka bastoolad wato wala dareema marka sababaas dhammaan jiray marka in bastoolada lagu ugaarto in dadka waraasto in lagu soo diyaar labadaas way bastoolada waxaan soo diyaarin ma loo sheegin kaasan ahayn anagna ma baraasin jirin marka ma meesha baaburta wareegaysay marka dadkii dareemo oo kale qabanayo marka shaqada ku roqo lagu dhahay marka hada ku dhacdo oo kale dhawaato marka bambada in la hadurta lagu mashquuliyo Allah bambadaas markani ku shaqeysanayo tirabama uu ku tuuray meelo kamid ah degmooyinka Yaaqshiid Boondere Shibis iyo wadajir ugu dambeyn nagartiisa argagixisanimo laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ay ku soo idlaatay kadib markii uu bam kamid ah 10kaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay Faarax Cabdulla Cariif oo kamid ah ciidamada amniga sidaasna ay ciidamada amniga ku soo qabteen Isxaaq Kero May sanadkan
يعني تومبا ما توري سجال وقرحين حالنا واكتبتي 25 bishan ayaa si kama dambaysa loo dhageystay dacwad soo martay dhammaan habraacyadii loogu talagalay hanaanka cadaaladda. ugu dambeyn maxkamadda ayaa maanta go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedeysanaha xaashida cadeynta dhimashada iyo sawirrada marxuumiinta kala ah Faarax Cabdulla Cariif iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyay marxuum Faarax Cabdulla Cariif sawirrada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeryaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareernada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedeysane Isaaq Keerow Aadan Cali uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho. halkani waa Samakulan TV waxaad ka heli kartaa wararka dalka iyo dibadda kala soco warar xaqiiqo ah iyo barnaamijyo xiiso badan. Samakulan TV